يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي جميعا، sidii la sheegay insha allahu tacaala waxaan dulmar ku samayn doonaa bisha ramadaan oo caawo isniina marka laga reebo lahuba habeen dambe keliya inay ka dhiman tahay. bishu maalin talaada la dhalatay oo la xaqiijiyey, arbacadu waa 30 de 29 bisha shacbaan ku dhammaato maalinta 30 ay noqon lahayd ee arbacada ah waynu soomaynaa haddii la arko. haddii kale khamiistu waa la hubaa 30 shacbaan haddii ay dhammaato wax dambe oo tiro la sii wado 31 ma laha. bisha sidaas u dhow aad baan u koobkoobi doonaa, kadibna waxaynu ka gaarno baynu su'aalo ka jawaabi doonaa. hal sabab baana asaas u ah axkaamta inaan si kooban u yar dulmaro. ramadaanku shariico iyo xukun cusub ma aha. kii sanad hore aynu soonnay waa isla isagii, kii 100kii sano iyo 1000kii sano ee tegey muslimiintu soo soomayeen waa isagii. axkaamtu waa axkaamtii, sunanku waa sunankii, waajibaadku waa iyagii, waxa jebinayana waa iyagii. mar kastoo ramadaan yimaado muxaadaraad baa axkaamta laga qabtaa, khutab jumca lagaga hadlaa, idaacadaha iyo telefishinada lagaga hadlaa, kelimada kooban oo salaadaha gadaashooda iyo munaasabaada looga hadlaa. marka axkaam cusub ma aha. waa wixii xilligii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey ilaa hadda 1430 sano bay muslimiintu qarniba qarni ka soo dhexlayeen soonkeeda. waa laga yaabaa qofku masaa'il qaarkood inay ka qarsoomaan, nolosha wax cusub oo ku soo biiray xaggee buu gelayaa in la yidhaahdo. waa dhici kartaa qofka hadda soonku ku cusub yahay inay axkaamteeduna ku cusbaato, way dhici kartaa. xukumaad horey u taqiinay inaad halmaantana way dhici kartaa. laakiin sida guud inta badan axkaamta siyaamku waynu naqaanaa. marka waxaa la yaqaano ku dheeraansho kuma fiicnee dulmar kooban iyo xasuusin buu ku habboon yahay. min baabi qowlihi tacaala wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin. cilmiga la barto waxaa ugu fudud xasuusashadiisa iyo aqoontiisa kii marka laguu sheego aada ku dhaqanto. dhegtana waad ka maqashay, ficilna waad ugu dhaqantay. saas darteed soonkuna kuwaasuu ka mid yahay, sidaas salaaduba uga mid tahay. axkaamtana waynu dhegaysanay, nin wacdi iyo khudbiyo muxaadaro dhagaystay iyo waalka cirku isku shareeray
nin wacdi iyo muxaadaro iyo khudbo dhagaystayna waynu leenahay in xeroysay oo akhrisatay oo kutub akhridayna waynu leenahay waxaanse ka midaysannahay waynu ku dhaqannay uu soo noqnoqday sanad 2 3 40 50 qofba inta ilaahay cimriga ka siiyeyba dee waxaynu in badanna maqalnay in badanna ku dhaqannay dulmar kooban ku filan baan u malaynayaa wixii markaa mugdi ka sii gala qofkuna su-aal buu qoraal kaga soo dhigi karaa inkastoo ay badato laga yaabo su-aalaha intaad soo hormarisaan intaan hadalka haya jawaabtii iyana inaan maro aad bay u dhacdaa waxaan rabaa 10 qodob inaan soo qaado ama waqafaadka 10 aan ka dhigo midda koobaad waxaan kaga hadli doonaa fadliga ramadaanku leeyahay inaan wax ka tilmaamo midda labaadna waxaan kaga hadli doonaa yuu ku waajibaa oo soon lagu leeyahay ta saddexaad waxaan kaga hadli doonaa yuu ka ansaxaa qofka uu ka ansaxay waayo ta afraadi waxaan kaga hadli doonaa yaa loo ogol yahay inuu afuro ta shanaadna qofkii afuray maxaa lagu leeyahay lixaad soonku inuu ansaxo shuruudaan qofka ahayn oo ku xiran oo jirtaay maxay tahay soonka maxaa jabiya jabintaasi shuruud bay leedahay maxay tahay maxaa ka mid a waxyaabahaan jabinay su-aashoodu ay badan tahay haddaan ka gaaray inta ugu dambaysa 10aad oon sunanka wax ka tilmaamo sunanka waa u dambaysiinayaa maadaama soonku markuu lafihii asaxee raasamaalka la hubsado baa sunnada iyo kabitaanka iyo wax ku dardar ku yimaadaa fadliga soonku bisha soo dhoweyn bay mudan tahay inaan soo dhoweyno oo aynu ku faraxno waxay ka dhigan tahay inay agteena qiimi iyo qadarin ka leedahay biyo macabaan marka hadlay allah ina barakeeyo bisha ramadaan qofka muslimka ah waynu soconnaa doonta iyo tareenka aakharaa la saaran yahay qofba meel buu kaga degayaa maalin kasta qofba qayb baa la aasayaa maalin kasta nacshi baan sii wadnaa ku shalay joogay baa la galbinayaa daarta aakhire muslimka iyo mu'miniinta aanuna raasamaalku waa camalka saalixa bisha ramadaan soonkeedu waxa uu mudan yahay soo dhoweyn iyo farax labaa laga helaa waana labada ugu muhiimsan qofka muslimka ah kow dembi dhaaf intaan wax qasno een wax walaaqno in dembi isku aan labayno in habeen iyo maalin saa u dabaalanayno meel la inooga dhaqa waa u baahanna bishu waa munaasabad dembiga la isaga dhaqo ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشهر رمضان الصوم isagoo ilaahay rumayn uu rumaysan yahay iyo ajir iyo khayr ka doon niyo wanaagsan ay ka tahay dambiga hore waa laga dhaafi mar kalena waa kiraha nabiga alayhi salaam aljumu'atu ila aljumu'ati والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر جمعة إلى جمعة عمرة إلى عمرة رمضان إلى رمضان انت ورد حيث لقدم بدافع تقفك إشي بموتكي من دي سيرة كرس عرنته دنبي إيا وحن أرقنين دبالان إيا هدي اللي يرادا ورهل كان دنبي قال يستقر دقا وحفر حد مدن marka munaasabad kooban oo in lagu farxa mudan la soo dhaweeyana mudan wayta mid labaadna waa laga helaa dambiga hadii laga dhaafo inta kaliya ma ahane kolaba aakhirada u socoto jannaad u baahanta waxaan janna rabin minugu jira de salaada waxaan u tukanay jannaday deebaana ilaahay waxaan rumaynayna jannaynu kaga rajaynaynaa meelaha jannada laga galo ee aaga iyo albaabka gaarka ah loo xidhay buu soonku ka mid yahay soonku albaab buu ku leeyahay jannada albaabadeeda 8 mid soonka iska leh isaga laftiisana qiyaamada intuu yimaado buu soonku u garamayaa oo garyaqaanaya u doodayaa qofkii soomi jiray in jannada la geeyo naarta laga daayo
ونبينا عسى وحليه صومك يجنده وينا صومك يقرانك قيامة إيمانيان يو الشفاعة يو إرجينا يقفك ودود يقفك الصومي صومك وحليه إلهي يو أنا درتي هاللو دع في يقفك وجنده هاللو جي محايا علي cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwadu jeclaa baa intaan ka hor istaagay buu aniga aqbalay dartay buu daayay maalinku hadduu joogay saa dartay hadduu yeelay maanta dartay ha loo sii daayo maxkamadan qiyaamada iyo xabsigeedii iyo cadaabkan dabayaal iyo aniga dartay maanta madaxayga ha lagu cafiyo jannada ha la geeyo waa inta xakamadii maadaydayna dambigaagoo la dhaafay iyo jannaad ku geli munaasabadan dhowr iyo sagaal iyo labaatan ama soddonka maalmooda waa tii mudnayd marka inaan soo dhaweyno aan ku farxano laakiin nasiib darro dadka qaar baa soonka ka fahansan gaajiyo oon ugu naxdin badan soonku u dhashay in la yidhaahdo habeenka arbacada inagu soo socda dad baa arkaysaa baryayo ilaahayana dhalan ilaahayana bishu bilan ilaahayana bisha bilan buu leeyahay markuu 29 soomana si kasta wuxuu ordayaa in la afuro soomkii dhammaado qaar markaa la sheekaysta wuxuu ku leeyahay niyow maalmahan waa naxsanahay maxaa dhacay soomkii soo dhow soo dhow buu leeyahay wuxuu ka fahansan yahay waana la gaajooda soonku gaajiyo oo badan buu leeyahay waxa uu muuqata uu shaqayn shaqaa la aadi waa la xamaali danihii baa la cayrin shaahi iyo biyihii iyo raashinkii la isku kululeynayay la isku qaboojinayay ee caloosha lagu yartiirinayay enerjiga iyo awoodda laga raadinayayna waa la iska afqabtay hadhow markuu barqadii joogo durba mar madaxa xanuuni gaar ahaan maalmaha hore marka soonka dhanba dhib iyo rafaad buu ka haystaa soo gelitaankiisana uu ka naxaa bixitaankiisana uu ku farxaa farxadda lama wada diidana laakiin farxadda ninka soonkii cuslaystay ee soonkuwa dhib uu ku yahay ninka farxaddiisu tasaxda maaha ninka ku farxaya bishii ilaahay u dhammaystiray waajibkii inuu gutay nabadna ilaahay ugu dhameeyey inuu soomana ilaahay waafajiyey ku farxaya farxad wanaagsan waaye ninka ku farxaya beladii baa ku dhaaftay oonkiiyo gaajadiina waa kaa dhammaadeen kaasi farxad saxa maaha waa nasiib darro bishani nabigeena calayhi salaam waxaa ka sugan xadiidulqudsi rabbi uu ka warinayo oo soonka gaar looga soocay looga saaray acmaasha kale oo nabigu leeyahay ilaahay baa wuxuu yidhi kullu camali ibni aadama lahu ila asawm ibni aadanka camalka kale ay sameeyaan oo dhan iyagaa leh malaa'igtuna inta loo qoray ajir waa taqaan marka soonka laga reebo fa innahu lii wa ana ajzii bih anaa iskale oo ka abaalmarinaya maanaa abaalka soonku malaa'igtu ma oga bay culimmadu yidhahdeen inaad soontay bay qori ajirkana looma sheegin ajirka intaa la-eg iyo abaalka intaa la-eg baa ayaam kadib inugu soo foodhaya wuxuu u baahan yahay soo dhoweyn wuxuu u baahan yahay in lagu farxo ninki ilaah qofka ilaahay gaadhsiiyo waa nicmo qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun xoolaha aan ururinayno soonkaasaa ka khayr badan haddii xoolihii way soo dhaceen iyo badeecaddii way timid iyo akoomkii lacag baa kusoo dhacday lagu yidhaahdo waad farxi saasi ka daran baa la doonayaa soonkii waa soo galay waa soo dhowaaday inaad farxdo kow laba ilaah inaad baryayso inuu ku gaadhsiiyo ilaahu i gaadhsiiyo munaasabadan oo ajashaydu mar hadday gashoon dhimanayo ilaahu soonkaana un gaadhin haydil waayo dembigii baan kaga qabaysan jannana waan ku geli ka hor laakiin haddaad dhimato dembigii oon lagaa dhaqin iyo adigoon baabkii jannada ku geli lahayd qaybo badan helin ajashaadu inay dhammaatiyo adoo soon dhammaysto oo dembiga lagaa dhaqaya ma fiican ilaahu nabad igu gaadhsiin in la baryo waay kadibna ilaahu i waafaji oo ilaahu iga aqbal in badan baa intay gaadhaan bale kale ku jirta waa laga yaabaa inay yimaadaan su-aalaha soonka nagu badan waxaa ka mid a qofka habeenkii oo dhanna soo jeedo ciyaar iyo wax daawanaya ama qayilaya maalintii oo dhanna hurda soonkiisa ka waran qofkaas oo kale dee wax badana uu ka sooma ma laha inta aan kaga gudbo fadliga munaasabaad badan oo dambaa looga hadli doonaa qodobka koobaadi soonku yuu waajib ku yahay waxaan leenahay 4 shardi qofkii laga helo soonku waa ku waajib
كو وإنه مسلية هديه قال يهي صون لو ماله هذا أنت الله يرى صون لوران معي هدو صو إسلامنا صون كي سو كتكتي قضاء لديه معي قال كصون واجب كماها أحكام باكا دلان دونت أحكام بدن باكو سالايسان أو كدلانيس أي كميتهاي قال قريه كاغا شاقية أما قال شقالة كوة أما أد مدحو تهي oo gurigii kana shaqaynaya shaahina ku karsanaya ama ku cunaya ama xoogay birrufta ku soo quraanaya qadayn laha aad siinaysa adoo madax ka saayil badan baa halka hoos gali doona laakiin hadda waxaan joognaa yu waajib ku yahay koo waa inuu musliya gaal soon waajib kuma aho bimaana soonna la dhihi maayo qadana la dhihi maayo shardiga labaad qof maankiisa iyo maskax leh oo aqli leh oo wax kala garanaya waa inuu yahay qof waalan soon kuma waajibo dadkan aqliga lahayn waa saddex intaan aqli la'aanta saddex waa qof aqliga ma gaarin waa ilmo yar wili ma aqliyaysan hadda isaga halkan looma jeedo hadduu xataa aqliyaysto wili yar yahay soo waajib kuma aha qofna waa qof aqligii dhaafay kan ma gaarin Soomaaliya mid baa waa yeelay oo kharfay oo isku dhaxyaacay oo da ka tambadisay kaana sooniya soon wax lagu malaha midna waa inta u dhaxayso qof waalan waay waalidu jinna waa ku dhici kara maskax isku dhaxyaacdayna waa noqon kartaa maandooriyo uu cunay inuu sababana way noqon kartaa hadduu khulaasada natiijada waashay oo maskaxdii aqligii guuray qaad soo cunayay buu darbiyada bustawa taayoo raamaleeyahay waa waashay waa waalan yahay sababkay dooni ha keentay mar hadduu waasho oo aqligii ka tago qofkaas oo waxba lagu malaha waxa waajib kuma ah culimadu waxay yiraahdaan qaar dadka waxaa jira waalidu u khayroonta وهدي بعقل الله ياله قال خطر ودي بدن نقول لها يو دمي بدن قل لها وديada intuu joogo wax badan loo qori laha laakiin haduu waalayahay rafaa alqalam an thalathatin waaye aan waxba loo qorinin ninka gaalka waalida u dhaanta aqli fiican ma leh shardiga afraad qof awoodo waa inuu yahay caafimaad ahaan iyo tabar ahaan qof soomi kara waa inuu yahay haddaanu aqligii leeyahay tabar ahaanna awoodin maxaa laga rabaa dib baan ku tagi doonaa insha Allah taala sadarteed waxaanu leenahay qofka soomku waajib ku yahay waa muslim qaangaara qofkaasan ka tagaan u maleynaya waa inuu qaangaad yahay ilmaha aan qaangaarin soon lagu malaha hadduu 10 gaara ama soomi karo waxana kala garanayo in lagu tababaro way fiicanto carruurta soonka ka celinina saxaabadu ilmo yar oo ooyay ridwanullaahi calayhim baa intay soomiyaan buu markuu gaajo la ooyo wuxuu ku ciyaaray ku madadaalin jireen innaga hadduu banooni aadaya lagama celiyo hadduu suuq aadayana lagama celiyo hadduu barnaamij TV daawanayana lagama celiyo laakiin waan soomi hadduu yiraahdo waa laga celin hooyiyo aabba ilma jacaylkii ku batay oo hada ilmaha gaajo waan u ogolahay markay iskuulka aadayaan subax intay aadaan intii rooti yar loo mariyo mararka qaarkood iyagoo boorsada ku wata ay maqribkii soo noqonayaan xataa kii ayna cunaynin subax hadana waa loo diri war wixii adduunyo ku saabsan ilmuhu hadduu rabo waa loo ogolyahay marna waa lagu riixaa laakiin aakhara markay soo gaadho 14 jir ma soomi kartid leeyahay goorbu soomi horta ilmaha guud ahaan ilmuhu 4 saacadood ha soomo qayb duhurka ha gaarsiiyo mar casarkii ha gaarsiiyo soonka ha bartaanay hal la daayo ilmihii wixii isku day kara laakiin wuxuu waajib noqdaa markay qaan gaaraan qaan gaarka ilmaha la baro hal mid baynu barnaa ilmaheena Soomaaliya hadana 15 jirkaan barnaa 15 hadaad gaadho waad qaan gaadhay baan dhiraanaa laakiin labada kala ma barno oo ma jiro inta badan qaab xiriir waalidka iyo ilmihiisa ka dhaxeeya oo qaangaarka kala ku saabsan min wiiliga gabadhba waa lagu qaangaaraa
midna gabdhaha ay gaar u tahay wiil iyo gabadhba inay biyihii shahwada yeeshaan ay isku arkaan bay ku qaangaaraan ilmihii lama baro ilme iyo wiil iyo aabbihii iyo gabadh iyo hooyadeedna arrimaha inay isweydiiyaan ama soo wada qaadaanba soomaaliga waa ku adagta maxaa dhacda marka ilmihii inuu qaangaaro mana garanayo soonkii waa ku waajib waalidkuna da'dii 15 halkaa calaamadaasuu fiirsanayaa maada qaangaarin buu leeyahay waa horana ilmihii hoos buu ka qaangaaray saa darteed waalidka waxaa laga rabaa ilmaha waad u sheekaysaan intaa u sheekaysaan iyo macallimiinta dugsiyaduba waxaa laga rabaa macallimiinta dadka u ah ilmaha qaabka qaangaarka iyo shahwada nooceeda calaamadaheeda midabkeeda waxa lagu garta ilmihii la baro waa wax qasab oo ku soo socdo ismari doono waa waxay ahkaam sharci oo waajib iyo uu dambaabay iyo qalinkii raqiib iyo catiid baa lala dul fuulay baa ka dhalanaysa marka ilmihii raashinka si loo cunana waan barnaa si magaalada loo maraa dharka loo xidhana waan barnaa bug iyo qalinkana waan barnaa laakiin halkii diiwaanka aakhara looga bilaabi lahaa suu ku garan lahaa bari mayna sax maaha waxaa saddexeeya gabadha caada inay ku dhacdo hooyadu gabadha caada inay barto oo ay kala sheekayso oo u sheekayso iyadoo haddayna bariyaa bari gabadheeda waxaa dhacda marar badan labadaba ilmo qaan gaaray oon loo sheegin oon isla garanaynin waa dambe buu ogaanayaa inuu 2 sano u dambeysayba soonkii ka tagay waajib ku ahaa su'aalaha badan ee marka anoon ogeyn oo qaan gaaray waa soon iga tagay waalidkuna maadan qaan gaarin isugu leeyahay way dhacdaa waxaa labaad oo dhacda ilmihii inuu isku arko waalidkiina wax xiriir iyo ka wada hadala kama dhaxeeyo baabkaas uu xishoodo la gabado waalidkii maada qaan gaarin uu yiraahdo isna waxana isku arkay oo ka xishoodo sida lagu afursiyo marka oo ku dhii waalidkii waa igu yiri saacna waan xishoodo waan kula hagaagi waay xiriirka marka horeba xuma arimahaas waa inay ka xiriiraan waalidkii ilmaha qaan gaarkan la barawa qodobka xigee saddexaad dadka soonku ka asaxa waa dadka uu ku waajibay kama wada asaxo dad uusan ku waajibinna uu ka asaxaa dad waxaa jira unan waajib ku ahayn laakiin uu ka asaxayo dad waxaa jira uu waajib ku yahay laakiin uu ka asaxaynin saas baa sababtay qodobkan inaan gaar u soo qaadno dadka uu ka asaxayo dadka 3 shardi laga helay qofkii laga hela way baasoomi karaan qofka soonka loo ogol yahay ee ha Soomaali leeyahay soonkii laga rabay inta kora waa yahay hadduu waxyaabaha kala ilaaliyo ay tahay oo qofka 3 qodob laga helay waa inuu muslim yahay gaal hadduu yiraahdo waan tijaabin soonkiina islaamkaan u akhrinayo waxaa lagu leeyahay weli ma islaamin laakiin bishii uu nala soomay hadduu iska tababaranayo dee qolyo caafimaad iyo waxyaabo kale isaga cuntada isaga daaya way jiraane soon sharci maaha waa inuu muslim yahay gaal soon ilaahay kama aqbalo laba waa inuu aqli leeyahay qof majnuun oo waalan iyo qof aqligiisu uusan joogin dee maba soomi karaan qodobka saddexaad waa inuu waxyaabaha soonka diidaya in soonka ka hor istaagay soonka jabiya aanay ku dhicin qasabka waa caadada dhiigga caadada iyo umush gabadha caadada qabtay ee gabadha umusha soonku waa ku waajib laakiin lama ogola inay soomaan dib bay ka qadayn doonaan iyadana 3 shardi baa looga baahan yahay qodobka afraad soonku markay bishu soo gasho dadkii guud ee uu ku waajibi jiray qaybo loo ogol yahay inay afuraan baa jira qaybahaasi waxaan is leenahay waxa ugu muhiimsan waa 5 qaybood oo dadka kamid ah koow dadka safarta ah musaafirka qofka musaafirka waa afuri karaa waana soomi karaa hadduu soomo uu ka asixi hadduu afurana way u bannaanta laakiin markuu soomaya waxaa shardi ah inuusan naftiisa khatar gelinaynin hadduu naftiisa khatar iyo dhaawac gaarsiinayo soonkaa looma ogola laysa min albiri siyaamu fi safar buu noqonaya kuwa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam qofka haddaba musaafirka ah ee xukunkiisa sharciga musaafirka yahay wuu afuri karaa hadduu awoodo uu soomana xamsata bni camrin alaslami suu nabigu u ogolaaday ninkaasaa u yimid oo yidhi rasuulka ilaahi waan soon jecla waana safar badnaa
حولي صون هدار ربطنا الصون هدار ربطنا أفر كوالا سومي كرا قفك الله بعض وقفك جرنا حنون صن حنون وصون كل بيو ونلا سومي كرين أما الصون كل بيو حنون كاستماها قولي مركان كسو بحيي بانصول كالباب كو يرلفتيو ويرديغي وانا فريا ما هدف عليها هداي عديها مركان اسكا غوريي bay baasho hoos ii yar gashayo cidida yar xanuunaysa xanuunku midna waa mid aadan la soomi karin midna waa mid aad u baahan tahay waad la soomi kari lahayd laakiin daawaad u baahan tahay kama maaranti daawadii inta la sooman yahay daawadii kama maaranti xanuunka caadiga ee marna la xanuunsada marna laga caafimaado way kaan ka hadlayno labadaas quraanka sheegay oo faman kaana minkum mariidan aw ala safarin فعدة من أيام أخر أي فأفطر وأفره مع المكة إنه قضايا على الربا ويأفري كران وين زومي كران هذين نفطوا ذا خطر جرينين والله صدح وحاكوه كودا أور كله أما علمها نوتشينيس ويسومي كرتا هذا يود هذا يدا النفط هذا أبغضه أما علمها هذا أي أبغضنا ويأفري كرتا nafteeda inay u baqda waxa keeni kara uur haday tahay quraanku wuxuu sheegay hooyadu markay uurka tahay wahanan ala wahanin way si daciifta jirkeeda si nafaqa beela haday ilmo nuujinaysana ilmuhu dhacaankeedii buu nuugaya ku dhacaanka ilmaha ka nuugo durba inay wada baab iyo gaajo qabata dhici karta ama waxa dhici karta dadku kala adkaysi badan ilmaha caana iyo nafaqa inuu ka waayeen ay u baqdo ama dhakhaatiir ay ku yiraahdaan la aamini karo ilmaha culays baa ka soo gaaraya hadii aad soonto qofka saasay nuujinaysa ama uur kale haday nafteeda u baqdo ama ilmaha u baqdo ama labadaba u baqdo way afuri kartaa nabiga sayyid xadiidka Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu warda dadka afraad ee loo ogol yahay inay afuraan waa qoladan soo sheegnay gabadha caadada qabta iyo midda umusha iyagana way afurayaan qasab ay ku tahay cuntadii iyo cabitaankii way u bannaan tahay baan uga jeedaa bishii Ramadaan maalmaha ay duruufta ku jiraan qolada shanaad waa waayeelka aan soomi karin ee tabar gabay waayeel aqligiisii joogo cimriga ilaahay siiyeyna gaaray heer uusan awoodin inuu soomo isna inuu iska afuraan loo ogoliyay shantaas ugu muhiimsan dadka inta inay afuraan loo ogoliyay qodobka xiga waxaan ka hadlaynaa marka dadka maxaa laga rabaa dadka afuray maxaa laga rabaa ma doonayo inaan gala tafaasiil faahfaahin fara badan laakiin markii nusuustu inna naska sheegay waxa laga rabo inna aayad iyo xadiid toona gaar uma cadayno uma sheegin ijtihaadaat culimo way inta culimadu ku ijtihaadeen madaahibta muslimiinta iyo culimada iyo khilaafaad baa jira intan qooda sheegtay nusuustu waa laba qaybood waxaan isleeyahay culimadu say u badan yihiin jamhuurta labada wixii kalena in la kala raaciyo haboon inaan fiirina asaasa sababta uu afuray qofka maxay tahay ma wax joogto ah mise waqti kooban ku eg dadna sababta uu afureen waa sabab kooban safar weeye dadku hadii sida qaalibka cimri safar lama noqdo safartu waqti inta la nagi yahay iyo inta safar la yahay dadka badankii inta la nagi yahay baa badan reeraha la joogo marka laga reebo nin bas wadi iyo nin taraag saaran iyo nin diyaarad iyo wadi iyo oo wadada si saaran oo si socda soo socda oo iyagana mujtamaca bulshada marka loo eego nisba ama percentage ama boqolleyda wax yar ka ah ahkaamta sida caamka qaalibka lagu saleeyaa masafarka kawde maradkii aayadu ay sheegtay jirooyinkan waa la xanuunsada waa laga kaca madaxa xanuuna caloosha xanuunta meel baa laga qabta fay hadana waa laga boodaa caada gabadhu maalmay haysa fay way ka boodaa umushu maalmo ama bil iyo wax lamid ah 40 bari way u banaan socotaa fay waa laga boodaa kuwaasi qada laga rabaa qolana cudurdaarkoodu ay u afureen sababtay u afureen dhamaansho male sababku u afuray cimriga ku furta waay qof waa yeelay oo awoodi waay
inta aynu naqaano xataa haragga kore inta la jeexo haddii la geegeejiyo tabardaradii waa sideedii qof waa yeelayna dee ma soo xoogaysto waxaa la mid a qofkii jiradiisu joogtada ay tahay ee la yidhi cimrigaaga inta kaaga laaban xanuunka waa uun kula socon inta la og yahay ilaahay waa mucjizo waa ku ridi karaa waa caafin karaa ama dawadan waa joogto cimrigaaga qofka cudurkiisu joogtada yahay xanuun buu u afuray xanuunkana rajo uu ku caafimaada ma qabo cimri iyo da' buu u afuray cimri iyo da'na lagama soo kabta dee nabigana cali soo ma dhihin xanuun kasta ilaahay daw u soo dejiyey cudur kasta oo dunida ka dhaca inaan lagu waafajinin waa baabkeeda laakiin daw uu leeyahay markii laba laga reebo gabow iyo geeri midna dawo ma leh geeri dawo ma leh soomaalida waxay dhaheen saddex lagama kaco ama lagama ilahelo cudur geeri og baa ka mid aha xanuunka ku haya hadduu geeri dawada ku hayo weligaaba dhakhtar kasta u yeedh waxaan moodaya carays xiisu ahaan jiray ninka yidhi ninuu malagiisu galay maruhu mawd buu ka celin masale weeye aanan maqal mar haddii waktigaa u dhammaado haddii maro lagu saari iyo haddii dhakhaatiir laguu geeyi iyo meel walbo lagu geeyo dhakhtarkii laftiisa sooma dhimanayo dawada lagu siinayo kii dawada sameeyey laftiisaa dhiman markay jashu dhammaato malakumowdku ma yaqaana kan waa dhakhtar iyo kan dawooyinkuu sameeyaa iyo kan waa dadweynihii caadiga ee isbitaalka ma jiray midna ma kala soco saa darteed geeridu ilaahay subxaana wa tacaala qofkii wuu yarayn karaa mucjizada ilahay awoodiisa waxba kuma aha laakiin waynaan baran haddaba labadaasi maalintiiba miskiin bay quudinayaan waxaan dhahaynaa marka qaacidada ay culimada u badan yihiin waxaa weeye dadka sababtay u afureen sababahan dhammaanaya sida safarka iyo xanuunka iyo xaydka iyo nifaaska ay yihiin qadaa laga rabaa waxaa la mid a uurka iyo nuujintu waa wax go-an oo dhammaada dadka xanuunkoodii iyo sababtay u afureen ay joogto tahayna dee shalay buuba u afuraye iyadoo taagan meeluu ku qadayaba ma laha jaanis iyo fursad qadaa ma laha iyaguna waxay bixinayaan fidyada maalin kastaba miskiin bay siinayaan maalintii miskiinka mud baa la siinayaa baa la yidhi mudkaa la siinaya mud maxaa la dhahaa waa suus afar loo dhigay midkii way rubucii waaye rubuc suus waaye oo suusow imisaa tahay 2 kiiliya badh waaye ugu badnaan haddii 2 kiiliya badh weeyaan idhaana suus mudkii 2 kiiliya badh unbaa afar u qaybin 625 miya garaam kiilada haddaad iska dhammaystirtana ziyaadatu khayr iska dheh marka 625 garaam baa maalintii caydhiina waad ku bixin kartaa isagoo bisilla qofka intaa raashin karaysa waad dharjin kartaa hal mar baad ka dhigi kartaa waad qaybin kartaa hadba sidaad adigu awoodee kuu fudud baad samaynaysaa inta qofkii caqli leeyahay qofkii intuu waayeelay caqligii tagay oo kharfay laa soom walaa fidye midna laguma laha dadka waxaa lagu leeyahay qodobka markaan ka baxo qodobka xiga ama masalada 7aad waxyaabaha lixaad baan leeyahay soonku inuu ka asaxaad aad u baahan tahay adoo muslima oo caqligii leh oo waxyaabihii soonka diidaya oo xayd iyo nifaas gabadhii aanay lahayn haddaad rabto inaad soonto labaad u baahan tahay laba arrimood inaad ilaaliso inta soonku ramadaankaan ka hadlaynaa inaad habeennimo niyooto waa kow waxyaabaha soonka jebiyeen inaad iska ilaalisana waa labadaa rukni baad u baahan tahay markii aad muslim tahay caqlina leedahay haddaad gabartaba ama dumar tahayna caado iyo umul midna dhiigga umusha midna aadan ahayn inaad habeenkii niyootaad u baahantao nabigu sheegay alay slat slam xadidkii xafsata binti cumar oo soon kama asaxa uu yihi qofkaan habeenkii niyoon niyadaasee loo niyoonayaa habeen walba waa la niyoonayaa asaxu lqowleyn waxaa weeye inaad habeen kasta niyooto jumlo la niyoodo habeenka bilowgiisiya ramadaanka bilowgiisiya ma asaxayso waayo soonku hal cibaado isku xidhan maaho maalin walba waa cibaado madax bannaan oo fajar ka bilaabata maqribna ku dhammaata walidaalika asixitaankiisu iskuma xidhna shalay intuu kaa asaxay oo maanta kaa jabo uu berina kaa asaxi salaada lamid maaha salaada hal niyaa lagaa rabaa maxaa yeelay intay ragcadda hore kaa asaxdo oy tan labaad kaa burto tad saddexaadna kaa asixi mayso waa cibaado hal xabaa waaye
soonku laakiin waa bil laakiin maalin walba waa maalin madax bannaan maalin walba madax bannaan yahay niyo cusub buu u baahan yahay niyadu niyo in lagu hadla u baahan ma jirto dadkeennu niyadii ha lagu dhawaaqo markii la yidhi arrin kalay dhalisay qofkan wuu soo toosay wuu suxuuranayaa maxaa uu suxuuranayaa inuu soomuu rabaa haddana subxii buu ku weydiin xalay maana niyoonin oo niyada kale rabtay maxay ahayd niyada macnaheedu waa inaad markaad seexanayso ku talagashan tahay berri inaad soonto saadaad ku seexato hurdo kula tagto aadaanka aad ku kacdo niyadii way ku jirtaa waad soo toostay suxuuratay maxaad u suxuuratay inaad soontaa rabtaa walaad suxuurtay kici hadhow hay halmaamin ee suxuurta muxuu saa u leeyahay inuu soomuu rabaa intaasay niyadu waa ku talagal inaad berri soonto aad ku talagashan tahay intaa waay wax kalood u baahan tihiin iyo laysu meeriyo lagu qabtaa ay ma jiraan qodobka toddobaadi waxaynu nidhi soonku wuxuu kaaga asaxaa inaad niyadiina la timaado waxa soonka jebiyana iska ilaaliso maxaa soonka jebiya waay marka waxa soonka jebiya haddaynu soo ururinno dee waxaa la tiriyaa wuu badnaanayaa inugu badnaanayaa 5 qaybood baan isugu keeni karnaa qaybaha qaarkood inay farabataan oo magacyo badan yeeshaan baa laga yaabaa qaybta koobaad waxaan leenahay cunno iyo cabitaan waay inaad cuntada cabto waana qaybta ugu khatarsan waaye soonka jebisa salaada subax hadday soo gasho ilaa salaada maqrib ay soo gasho cunto iyo cabitaan lama ogola cuntada iyo cabitaanku waa laba nooc marka mid toos iyo mid dadban midna lama ogola midka tooska ihi waa afkooda wax ka qaadata waaye raashinka aad cunto sharaabkii inaad cabto wuxuu dooni ha noqde ama daawo ha noqdo ama cunno ha noqdo cabitaan kale ha noqdo midda dadbanna cuntada iyo cabitaanka waxaa loo qaataa inay oonka iyo gaajadana kaa bi'iyaan awood iyo tamar ama energyna ku siiyaan baa loo qaataa iyagii waxaad sida wixii booskaa buuxinaya oo irbadahan enerjiga ah iyo irbadahan iyo faleebooyinkan cuntada iyo cabitaanka booskooda gala waa cunno iyo cabitaan dadban waaye saa darteed waxaynu intaa isugu geyn cunto iyo cabitaan soonka waa jebiyaan ama toos ha noqdaan mid muuqda ama mid dadban ha noqdaan soonka way jebiyaan waxaan labadaa midna ahayn cunno iyo cabitaan ahaan soon u jebin maayo irbad baa gacanta laygaga duray bawdadaa laygaga duray garabkaa layga duray soon ma jebiyaan cunno iyo cabitaanna wuxuu noqdaa ta dhabtiihi wixii gudaha u gudbo waayo wixii inta hore aan dhaafin soonka waxuma dhimo inna waa taqaanaan inna dadku way la yaabaan laakiin qodobka dambe kuwa ugu tegi doonaa dadku ay moodaan inay soonka jebiyaan laakiin aan jebin waxaa lamid oo labeeya shahwada shahwo gudashadu soonka way jebisaa iyadana waa labadii mid toos iyo mid dadban midda tooska ah waa xiriir goboleed oo rag iyo dumar dhex mara xalaal iyo xaaraan kuu dooni ha noqdo soon jebinta way ka midaysan yihiin haddii uu xalaal u sameeyo qofku iyo hadduu xaaraan sameeyaba dembigii xaaraantinimada ha isdheeraadaan laakiin soonka way wada jebinayaan halkaasaynu ka hadlaynaa labadaba soonka way jebiyaan macnaheedu inay siman yihiin si kale maaha laakiin soon jebinta waa u siman yihiin waa midda tooska ah midda dadban maadaama xadiidkii lahaa qudsiga yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli waxaan idhi sharaabka iyo طacaamka waxaa soo gelaya ka tooska iyo ka dadban wa shahwatahuna ka tooska iyo ka dadban baa soo gelaya midka tooska waa garateen soo maha midka dadban waa kee shahwada dadban ay yaa sheegi shahwada dadban yaa sheegaya shahwo gudashada dadban yaa sheegi kara qofku markii xiriir goboleed yimaado laba qodob baa asaasi ah wax horeeya iyo wax ka dambeeya xiriirka waxna waa ka horeeyaa xiriirko xaalad uu qofku iyo kulayl uu dareemaya waay
waxna waa ka dambeeyaayo muxuu dareemaa markay dhammaatana nafis iyo daal buu dareemaa soo ma waxaa jira xiriir gogoleedna aan ahayn labadiina iska leh inta ka horeysana dareenkii iyo kulaylkii leh inta ka dambaysana nafiskii iyo daalkii iyo dabicii leh soo ma jiraan kaasa soomaali cariyaa ku dhaco sheegay noqoto ku kaajaa nin oo aqaanaa wey shahwada oo la iska keena waay ama carabiga caada siriya la yidhaahdaa istimnaa baa la yidhaahdaa jaldi camiirana waa la yidhahdaa saddexdaaba kutubta ay ugu qoranta soomaalida laakiin hal magac bay leedahay soo ma hal magac bay caan ku tahay waxaa u taqaanaa maaruma siigaysi waa u taqaanaa qofkii xiriir goboleed sameeyey markii hore intuu dareemayeyna waa un la wadaagaa marka dambe intuu dareemayeyna waa un la wadaagaa bilowgiina waa isaga mid natiijadiina waa isaga mid maxay ku kala duwan yihiin qaabka loo shahwo gutay bay kala duwan yihiin kana cunadii iyo cabitaankii gaajana waa dareemayey marka dambena gaajadii waa ka ba'aysaa enerjigii waa yeelanayaa laakiin sida loo qaatay inbaa kala duwan marka qodob kale waxaa leenahay shahwada gudashadeeda tooska ama dadban waayo qodobka saddexaad ee soonka jabiyaay waa qofku kas inuu isaga matajiyo waay iska matajisa waay adiga ama af gacan geli ama xarig isticmaal ama caloosha tuutuujiyo dacdacso iska keen aduu haddaad mantaga iska keento soonka waa kaa jabayaa xadiid abu hurayra nabigu ku yihi alay salaam qofkii kasu mantaga falyaqdi ha qadeeyo qodobka afraad ee soonka jabiyaay waa inuu gabadhii ku dhaco dhiiggii caadada ahaa ama kii umusha iyadoo sooman soonkii waa jabayaa haddii intaa kale lagu dambaabi jiray kan laguma dambaabo soonkii waa jabay laakiin dembi ma laha iyadoo de wax awoodeeda ah maaha tan ugu dambaysaa ugu daran wax soonka jabiya diintoo laga baxo waay markii hore muslim inaad tahay soomaanaan dhihin adoo muslim haddaad bilowdo laakiin adoo soomanaad diinta ka dhaqaajiso soonkaana waa jabayaa marka waxaad u baahan tahay intaad sooman tahay wade diinta inaad ka baxda adoon ku talagelinna way dhici kartaa adoon ku talagelin banaankuna adoo taagan inaad is aragto de marka horeba haddaadan u aabayeelin intaad iska xanaaqdo haddaad ilaahay iyo diinta iska cayda adoo sooman so wax dhici kara ma qofku inuu saa sameeyo wax dhici kara wey wayna dhacda waa aragnaa ilaahaaga iyo nabigaaga iyo diintaadii iyo malagaagay dhahaan intaa markaa cayda dee muslim ma tiid soonkaagii waxba kama jiro waa buriye marka waxaa kuugu sugu darmaday soonka oo kaa jaba iyo de soon maxamed ka sheegi soon maxaad ka sheegi diintii dhannayd waa ka baxay qofkana soonku soo in yaroo diinta dhexeeda ama ahayn arkaantii diinta buu ka mid ahaa oo weliba laba ka horreeyeen buu saddex baa ka horreysay afar buu ahaa saddexdii hore iyo waxoo dhan ba haddaad dumisood ka tallaabsatay soon muxuu sheegi shantaas waa shanta soonka jebisa cunto iyo wixii macnaha u dhigma shahwo toos oo xiriir gogoleediiyo wixii u dhigma kas la isaga mantajiyo dhiigga caadada iyo umusha iyo diinta oo laga dhaqaajiyo shantaana soonkay jebisaa dee mid walba faahfaahinteeda iyo ka hadalkeeda iyo baabkeeda waay qodobka sideedaad intaasi markay soonka kaa jebinayaan marka ka damba laga reeba gaalnimada iyo dhiigga caadada labadaa laga reebo cuntada iyo cabitaanka shahwada gudashadeeda iyo mantagu markay kaa jebinayaan soonka saddex shardi baa la rabaa saddexdaa shardi mid kamid a hadii la waayo soonka ama jabo shardiga koowaad waa inaad khiyaarkaa ku samayso lagu qasbin haddii laguu qasbo qoorqabad aad ku samayso soonkaagii waxba u dhimi mayso haddii maanta naftaadii iyo ama wax ikraaha noqon kara iyo soonkii kala doora ku noqoto wixiina samee soonkaagiina waa kuu jiraa soon maxaad ka sheegi islaamnimadii baa lagu yihi gaalnimo haddii laguu qasbo oo sanam u sujuud lagu yidhaahdo oo wax lagu gaalooba samee qasab lagaaga dhigo iska samee islaamkaagiina waa kuu jiraa kii weynaaba hadday saa noqotay soonkii ka yaraa isna samee waxaagii soonkaagina waa kuu jiraa qofku waa inuu khiyaarkii ku sameeyo ko
laba waa inuu kas u sameeyo oon halmaan jirin waa inuusan halmaansanayn haddaad soonkiiba halmaanto ood cuntood cabto ama shahwo gudato ama iska matajiso soonkaagii waxba u dhimi mayso labadaba way tusaanoo cuntadii cabitaanka nabigaaba sheegay sal lla alay slam wuxuu yihi ninkii halmaama oo cunoo cabba soonkiisa ha dhammaystirta ilaahay baa cuno iyo cabitaan siiyey si guudna wuxuu yidhi ummaddayda saddex looma qabto can ilkhata'i waannisyaani wama stugrihu calayh wixii lagu qasbay iyo wixii halmaan ku dhacay looma qabto haddaba halmaan inaad halmaansan tahay iyo in kalena laba mas'ala halkaa ku tacalluqdaan tilmaama marka dadka ku arka inay ku daayaan maaha inuu halmaansan yaha laga yaaba ay ukaadi maaha innaga inta inoo muuqatee daahirkaa qofkan waa sooman yahay qof sooman oo cunto maalin cunaya waa munkar iyo dembi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihidii waay munkarka waa in la reebaa dadka ku arka adoo cunaya ma cabaya war ka daa inay ku dhahaan sooma soomanid ilahay ka yaaba inay ku dhahaan baa loo baahan yahay haddaad halmaansanayd intay kugu tagtay allah ku anfaco mid labaadna inaad halmaansan tahay iyo in kale ummadda waa siri kartaa laakiin ogow soonka waxaad u sooman tahay aakharana ajir kaga rabta waa ilaahay ma siri kartaa alla waan halmaansanaa haddaad dadka ku dhahdo waan kaa rumaysanaynaa kuma beenin karno laakiin ilaahay wuu ku ogyahay inay runtaa tahay iyo inay beentaa tahay nin baa waxaa la yidhi soomaalidii hore lug buu la'aa lug buu goonaa dee markuu salaada tukanayo wuu fadhiisan jiray dee safada reer baadiya lahaa ee marka uu gaadiidka raranayana intuu gaadiidka ku tiirsaduu dameerka caynka ku jiidi jiray nin baa la kabta way hebelow ilaahay wuu ku arkaa inaad salaadiisana fadhi ku tukanayso dameerkaagana taagni ku raranayso marka de waxaad noo sheegta noo sheeg ninkii yidhi webi shabeelle intuu mukhuurtay oo hoos ka soo cabay yidhi ilaahay saasaa loo siraa bisha soonna dee ilaahay biyo hoostood lagagama dhoonto annaga iyo dadka ajir inagu dad ajir kagama rabno allah baan kaga rabnaa inay halmaankan run yahay inuu been yahay ilaahay waa og yahay hadday run tahay waa inaad xasuusan tahay oodan halmaansanayn shardiga labaad shardiga saddexaad alcilmu waayo inaad og tahay waxaan inuu xaaraan kaa yahay soonka jabinayo haddaadan ogeyn jahligaa waa cudurdaar xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam qur-aan baa soo degay waxaa la yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi intaasaa soo degtay xarigga cad iyo xarigga madow inay kala caddaadaan habeenkii iska cuno o iska cabo qur-aanka waxaa loo jeeday cadiinka iyo madowga habeenka iyo iftiinka waa beriga ogta hore waa beriga salaad wax soo gasho hal qof ka badan dhowr qof oo saxaabada kamida baa waxay u qaateen xargaa in loo jeedo laba xarigoo mid cad iyo mid madow bay qaateen gurigay galaan barkinta hoos gashadeen uu soo bixiyaa uu fiiriyaa markuu kala garan waayo raashinkiisuu rigti ka geliyaa waxoogay muddo kadib bay u sheegeen nabigu ay dhaheen saasaan samaynaa markaasuu hadal waxoogay damanaan inay ku jirto uu qaarkood ku yiri soonkiina soo qadeeya ma dhihin soonkii soo qadeeya de qof guri ku jiro waxaa laba xarig kala garanaya maalin cad inuu cunayo mashaki baa kaaga jira ilaa uu labadaa xarig guriga dhexdiisa kala gartay raashinku iska wadayay de maalin bay cuni jireen laakiin jahli bay cudurdaar ku lahaayeen saddexdaa in lagaa helo weeye qodobka sagaalaad waxyaaba aan soonka jebin baa jira dadkana ay su-aashoodu badan tahay soonka ma jebiyaan qayba cunada iyo cabitaanka ay la xiriiraan qaybina shahwada ay la xiriiraan labadaasaa ugu badan tan horaana sii badan waxaa ka mid a waxyaabahaan soonka jebinin dhiigga la yska qaadaa ka mid a asalkeedu xajaama baa la toobinka ahaan jiray toobinku waa qof inta la toobay dhiig laga saaray dhiig lagaa saaray iyo dhiig lagaa qaaday ama adiga ha lagu baadho ama qof xanuunsan u shub dhiigga la iska qaaday soonka ma jebiyo haddii adigii ay baahi keentay xanuun iyo caafimaad ama qofkaasi baahi adag haysay ood intaad u shubtay aada adkaysan weyday oo soomi weyday soonkii khatar ku geliyey waa lagu ogolyahay inaad afurto laakiin isagu kaama jebin haddaad aad u afurin
صدرت سؤالهم فرها بدن دكتور بان تجي بارس بارو تجي ديك بالا إيجا قاضي ديك بالا إيجا شوي قف بان ديك وشوي وحياها صدق نبر بايقول دعيو ديك بايجا يمد وحصدق وحي كاي يمد ديك جاي الله متكها صون كمتشبيان وحلا مذا وحكستو أفكار لقى قاتو أن أوركي عروش أودع دقين صون متشبيو وحي أنت أفكار أكوئك هذا مشكلات ما لها وحنا أفكار جلسي إن هذا كدر أنتو قد شردوا أي دريمان إنه كلولي هاي إنه قبوي هاي إنه خراري هاي إنه معاني هاي إنه ناني هاي إن هذا دريان تايسون متشبيس وحيابها هو يفرق بديه المركب قيب وين النقان وانا وذا أقنه وانا نصمع الناسون كأننا متشبيس اسمه ويدينه وهذا ويسيستا واللغلقتا بيان أفكاد جلسي أفكي إلكي أنت اللي كتير صوما هذا هو سودا ديان ويكاتش من سونك هذا قبويه والدريمي ما كافر جلسه هذا بيوه أنا أما كل يهين والدريمي درين كي درين تي وحما بينن هذا يوان قادنا أما بروش كان قادنا وان عذينا لو أنا عذي ما كان كو عذينا يسوما درين لأن كذا النوع هي كل اللي كتيرين كذا عادي أفكان قلنا عرب كان حقنا كربا إنه عذينا وانسك صوتفنا عادي وأقول أن برنامج كانوا نفك قلني بتشوي سوما أنت وان نقان كويس نقول هذا كدر لأن من الراشين كعلم ده راشين كيف مرق قعنت قليسي عرب كعصارتي إنه عسبله هي إن كلا لما حد سمع يسهل كي بيو قاري سيرين بعد قاري زي ما عمل كرجي دران كان درامي وبيها كليل يقبوا أنا يعني كذا سماه دري بتشيل انتظر هذا واتسوق عاد كهيل بكويلي قاد قاري سواد روبتين وبسلاده ين كلا تيسقي ما سوقي وهذا نقده كاتشبي لكن هل كان كسر عريسه وهل كان بيها كسر عرينا إذا مشكلات ماله طبعا الله يعبنا مرك تنظر نبي الراشين كه أنت يقعد نوايت بيو قاريين وحال بدأ علماء إنه ركعان لين حنشد الرجوع حنشد وصام كم شيء بيساوي على قال حنشد الله والله قوي يا مرك حنشد واحد عن كتيرو مال ميسا وحكسو دحية لا ميسا أما أنا هالنقطة أما معان هالنقطة تاسي هدو دحي هاس كوجو بحوي كاتشبين لكن حنشد بيدني جيدها لقى قرن شري مدة سيعة كاتين دعان كلهين أذوقون الكوك وحنون ياد يعني عم رفض طالنا يس يدو متشبين يساسونك وحيد هالماء وهي محي قاعدة وحكد مال ماء وكسر دو حيوه سود يدو سشرين حقي قاعدة الكهرب بيتاعن الكهرب سوق عادي بيها جيل يسمع دي وحي الكهرب قال قاعدة بدو تشبين أيوه بيه عادي يقول ده تشبيات لكن توا تشوك تانو سمعناه والله قبصنا كونا ونقول عسبيه وحلا ميدون تشبينين ضد كان أما النفط أما عبر كقبا بهاشان قيقة قاطان قيقة نوع على القلماء إنتن يدربياش بو عبر كي كلفكيا كولا ميدان سمعنا هو يمكن راشين ككرينا يعفر ككرينا قاع سوكم بح كان قاع وي أنت يا عبيتان منا ما نفقنا ما قاعوا كبحة ضدك السوق ليدا ضدك الراشين كي يبرك كشقية كذا ما أنت دمرك ميسية صوبرك كم بح وتني صنك مركي فيف ليراديو مركي لغلغلغضية كمان بيجي ماده هذا صون كم تشبيه ضبضب اسمان قال لي قيقي وين كبحي هذا مركي أخاك تريبها القيقي ودنبصها كاسو قاي حصون كاجا تشبين ماي بنان كاساين مرني سيلون روب كدين بعد وددا سو فرانون لامي هين متى توغلو كو عراويات قرب قادي ما فليس مركز قيق بدل بور بدل انو كو غلو اما بنان غرورن عيد لهين بعد قلبتي بروري كو عيارتي اورد كادور ديسي هدو marka xaq tiraado so maxaa soo tufi ciidii waa soo tufi boorka haddana shaki kama qabno soo ma jabiso markii baashan la buufiday la yiraahdo ba hadalku yimaada way nagu cusub tahay wax kala ma aha iyada nagu cusub
qaaca saas oo kaleetaana ma jabiyo markaynu nidhi waxaan energy ahayn jabin maayo waataan soo tilmaanay irbadaha meelaha la isaga duray iyo wax ma jabiyaan ilig baa la iga saaray su'aalaha aad u yimaada iligii markii laga saarayay de biyo waxa la isticmaalaya haddii hoos wax u degeenna uu ka jabi haddii ka iliga la soo saaray dhiigga ka yimid soon ma jabiyaan cunno iyo cabitaan ma aha laakiin saboosaan hoos ka qaatay sabooso soo taqaanaan baashan gadaal laga qaato ama xanuun baabiya loo qaata ama xubnaha ay xaajadu marto adkaaday iyo xaajo ku dhigtay dabcinteed baa loo qaataa ama sababo kale loo qaataa saboosadaasi ma jabinaysaa maya waa wax inta hoose dabcinayo jeeje ama xanuun baabi'iyo un sidii irbad xanuun baabi'iya waa ha maane cunniya cabitaan midna la macno maaha waa calool iyo jawf u dhaadhacana maaha mid kalaa jirta oo ku kaajaa nin oo aqaana oo kala aad baa naloo weydiiyaa waxaa la yidhi wadaadku hadduu qaadi noqdo ama su-aalaan ka fatwoono waan jawaabi u yidhaahdo wax badan oo dadka waxbaa kusoo noqnoqon isaga caadi bay la noqon dadkuna wax dhib badan oon afka la soo marin karinoo dhegta aan u fiicnayn bay dadkana u tahay sabab darteed mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan wadaadada xishoo darana de si naloo weydiinayey naloogu celcelinayey annaga caadi nala noqotay maxaa arki jiray galbeedkaas rag soomaaliya baa markay tageen ay u horreysay bay meel degeen guriguu degay baa la baraya xaafadda waxaa la yidhi adigu qoys baa tahay halkan waxa kaa waa qoys kuwa dhinacan kaana waa qoys kan wuu garaystay oo rag iyo dumar baa ka soo baxa kan laba nin baa ka soo baxa wuxuu kan waa iska abulay qoysee ku yahay way isqabaan baa layidhi labada nin way isqabaan baa layidhi naxdin taagnidu ka dhici gaadhay way ku cusub tahay mogda muddo markii la joogay caadi bay noqotay intay iska hor yimaadaan haay way isdhahayaan wuxuu markuu kugu soo noqdo oga dambe caadi buu kuu noqon taa hadday caadi noqoto nooga garaabo waxaway noo cudurdaara waxyaaba badanoo markaan sheegayno idinkaadu yar foorarsanaysaa baa jira laakiin annaga caadi noo ah su-aalaha nala weydiiye aad u batay weliba gaar ahaan dadku markay qoraal wax kugu weydiinaya aadan aqoonin ama telefoon wax kugu weydiinayo is og yahay inaadan garanaynin wuxuu u baahan yahay sibuu cad buu ku weydiin waxaa la yidhi qofka ugu roon baa wuxuu ku dhihi waxaa la yidhi in allaha laa yastaxyi min alxaq ee xaq kama sarrigtay su-aal buu u baahan yahay inuu sharxana uu ku qasban yahay si xukunka sharciga u helo marka waxyaabaha qaarkood baan soo wadaa waan intaa afeefanaya waxaa su-aalo nala weydiiyaa gabdho badan baa dhakhtar baadhis u taga baadhistii meelo gudahabaa gacanta in lagu soo ogaado loo baahdaa ma dhacdaa dhalinyarta aad u garan mooyaane ka daayi dhalinyaraha meesha u badane soonka ma jabiyaa maxalu shaahidku maya waxani waxa cunto iyo cabitaan guda u dhaadhacay maaha kuwaasina soonka ma jabiyaan wixii lamid ahna intaa kadib igu sii riixna ka qiyaas qaada adigu waxyaabaan soonka jabinin qaar xiriirka goosha la xidhiidhaa jira xiriirka goosha wixii shahwo gudasho ka sokeeya soonka ma jabiyaan wixii shahwo la gutay ka sokeeya toos iyo si dadban wixii ka sokeeya soonka ma jabiyaan istataabashadii baa ka mida isdhudhunkashadii baa ka mida isqoorqooraysigii iyo ismucaaraqayntii baa ka mida waxaasoo dhan haddaan wax ka dambeeya dhicin soonka ma jabiyaan soonka ma jabiyaan markaan leenahay dembina ma aha haddayna wax kale ku gelinin laakiin waxaa lagu talinayaa ninkii dhalinyaro ah ama enerjiya awood badan isku yaqaana inuu isaga fogaado agga inuu ka fogaada lagu talinaya ninka odaya waayeela ama marka horeba taagaya tabar badan oo baabkaas aan isku ogeyn isaga dhibaato male maxaa looga jeedaa ninkii ama dhalinyaraa ama awood badan isku og hadduu aga marmaro yushiku an yaqaca fiihi waay wanxama xawla alxima yushiku an yaqaca fiihi waxaa laga yaabaa tala farihiisa inay ka baxdo inay tala farihiisa ka baxdo ayaa laga rabaa ayaa laga yaabaa
Abu Hurayra wuxuu leeyahay nabiga calaysha nin baa u yimid anoo la fadhiya kaas rasuulka anoo sooman xaaskayga ma taaban karaa iyo waxoogay ma doocin karaa markaas wuxuu yiri hadhi malaha aan halka anagoo fadhiya ninkii waa iska tagay nin kale yimido su'aashii lafteedu weydiiyay markaas wuxuu ku yiri may labadii nin baa fiiriyo kii horaan oday waayeeloha ka damayn dhalinyaro jamjam oo xoog badan buu ahaa ninka odayga Caaishana waxay tiri nawaxsab isagoo sooman reerkiisa waa taaban jiray laakiin wuu iska adkaa idinku yaa iska adkaan kara halka haday gaarto tala faraha ka bixi karto marka intee ka bixineed meeshan waa cabsi maaha cabsi ku daas lama dhihin haydi waa waajaane banaankaaga asmar taasina wixii unaan shahwad timid ahayn waa la istaataabtay waa la isduuciyay waa la isdhundhunkaday qoorta la iska wala qoorqooraystay adu waxa doonta akhriyo soonka ma jabiyaan kaliya qofkan iska adkaan karin baabkaas iska ilaali inta hadda dambi ma aha laakiin haday kula taraarto adaa godka isku riday halkaas qaybta ahkaamta hal qodob aan ku soo gabagabeeyo mas'aladan aan hayay la socdo salada waxa la socda waxaynu niri dadkii soonkoodu ka jabay inna qada laga rabaa inna waxa laga rabaa fidya laga rabaa qoladan shahwadu waxay dheer yihiin qofkii xiriir goboleed oo toos ah saa ugu jabiyay kafaara gud buu dheer yahay 6 maalmood oo soona hal maalin hayba laga waayay Soomaa ciqaabta lagu adkayno 60 baa lagaga dhigay haduusan awoodin 60 miskiin buu qoodin maalintiiba hal miskiin buu qoodin sidaas u sameyn intaas kadib waran hadalkii uu batay waqti wala dhaana saaca ku filan maan islaahay soonku waxyaabo sunno oo qurxiyo leh cibaadadu inta waajibka kaliya ma ahane in qurxda oo dhamaystirta oo naashnaashta jirta waa sunanka aynu ku dadaalo sunankeeda kuwa ugu muhiimsan waxaa kamida القيام والتراويح بشهر رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وروى الغدى فقيام كان النبي عليه الصلاة والسلام أدبو قيام كودي في قرين شري الصحابة سلف كينا نبينا هل مدبو تراويح له داي أما وحي سود غاية وددك لقوا واجبية قرت النبي ودنتان عليه السلام حلقي عمر بعدبو سونو ليو يجري والحلقي النبي ودما يوحينا سود ماي لنا واجبيين ماي باشا صلاة نوع عامرة نبي صوبته وقت ما أنت مية له حكم كنا يدور مع علتي وكلا يراد قيام الليل أما تراحلتكم أما قولي كلي كتكو ملا كتو كتبع صلاة التراويح هي قيامك هي صلاة الليل كو وحر رمضان كم معاني مالنتي سنة قرحية واي تاعي نكود ذالو مدى اللبات أي نكود ذالو صدقة adugu ugu badnaan 30 bari baad sanadkan soomi kartaa sida tooska ah laakiin si dadba baad 300 u soomi kartaa dad sooman inaad afuriso waa ilaahay fadligiisa qof sooman hadaad afuriso isaga ajirkiisa waxba laga dhimi maayo adna in lamid ah lagu siin hal qof hadaad afuriso maalinka hal qof afuriso laba soon ku dhig maalinka 10 afurisana 11 dhakaage marka lagu daro maalinka 100 afurisana 101 marka bisha Ramadaan markaad ugu yar tahay soon laba ka dhig lamaane cidi heli kartay Ilaahay si awoodeeda soonka Ramadaan iftaaru saa'imku masaakiin kuma xidhna qof sooman inaad afuriso Ilaahay adduunka ugu taajirsanaa sadarteed ba waxaan ku talinaa haddii ay dadkii nin walba isagoo timirtiisa iyo bacdiisa wata yimaado waxaa fiican taadaha ku afurinay qof si asnatiisa ka qaado ina afurtu soo madalin afurtay cuntadiisi aad ku afurtayna ajirkaaga mid la mid u heli taadii ku afurayna ajirkiisa mid la mid ah heli afurkeena afurtay maadan qadin timirtii iyo biyihii qaclad ka siisay ajir dheeraadana waad heshay Soomaa laakiin baasha la xijacladu farqa qaarkood xoolo jacaylka la xijacladu waa musiibo intaadaas ku muuqato ruux kale inuu ka cuno walaga kaga baqash halka biyaha iyo dhowrka xabbaad timirta
adigaa lahoo isa siinta iyo xoolo jacaylka adu inaad cunto war maxay yeeli bacda iyo biyaha uu kaa haysta haddaan ka qaato taydana siiyo ajirna aan helo isna ajir uu helo jeclaa diidi mararka qaarkood jeclaa marka aynu yarayna mararka qaarkood xoolaha waynu bixinaaye bisha ramadaanna afurinta dadka aynu soonka badsanno sadaqadana aan badina nabigana alayhi salaam isagaa dadka ugu deeqsisanaa wuxuuna ugu deeqsisanaan jiray bisha ramadaan buu khayrkana ugu degdeg badnaan jiray uguna deeqsisanaan jiray waxaa saddexaad afurka iyo suxuurta afurkana aynu dadejinno oo nabigeenu wuxuu yihi ummadaydu khayr kama zuusho khayr kama dhammaado intay afurka dadejinayaan suxuurtana aan suxuuranno nabigeenu wuxuu yihi suxuurta baraka ku jirte soonkeeni iyo soomkii ummadihii kalena waxaa lagu kala saaraa iyaga suxuur uma banaaneen hadday fiidkii mar seexdaan innaga laakiin suxuurtaa laynoo baneeyey oo laynoo jideeyey barakaana ku jirta xataa walow koob biyo amaad ka batid suxuur la-aan ha soomin waxaan uga jeed malihi suxuurta hadday ku dhaafto ha soomin kumalihi laakiin suxuurta ha dayicin ha fudaydsan hana la soo dibdhigoo saqdhaxayaan laga dhigin inaha suxuurtaas iyo afurka dadejintiisa iyo salaada iyo qiyaamka iyo infaaqa iyo masaakiinta la xasuusto si guud ahaaneedna khayrka ha la badiyo qur-aanka dikriga qur-aanka bisha ramadaan xiriir gaaraa ka dhexeeya bisha ramadaan iyo qur-aanku marna qur-aanku bishuu soo degay marna nabi maxamed ala nabi maxameda jibriil baa bisha ramadaan intuu u yimaado qur-aanka ka dhagaysan jiray ka bishan daryeel gaara qur-aanka in la siiyo oo dadaal gaara lagu bixiyo u baahan yahay inahaasaan kusoo ururin lahaa warka intaa inuu igu badanayo soonku saa u axkaam badan yahay maba moodaynin ilahi subxaana wa tacaala soonka nabad allah inagu gaadhsiiyo soonkiisana allah ina waafajiyo allah inaga aqbalo ilahi subxaana wa tacaala waxyaabaha soonka ka mashquuliyo jebiyana allah inaga ilaaliyo ilaahayna haynaga aqbalo acmaasheeda ina waafajiyana haynaga aqbalo